اوكي magacayga waxa la yiraahdaa Xanime Axmed Yuusuf waxaan deganahay magaalada Geneva ee wadanka Switzerland waxaan ku hadlayaa magaca dhalinyarada gobolka Galhiiraan and Haradere State marka dhalinyaradu way garba badan tahay qaran joog ma hay waa qurba joog magacaan ku hadlayaa marka dhalinyaradu waxay ga codsatay xalkan wada fadhiisanay waxa laga codsaday inaan ka sheekeeyo baahida dhalinyaradu ay qabto waxyeelada dagaalku sakeeyo ku yeeshay saameyntiisi waxay haatan ka higsanayso maamulka cusub horta ugu horeyn aad baan u soo dhaweynaynaa maamulka aad baan u soo dhaweynaynaa laakiin soo dhaweynta waxa ka sokaysa codsi dheer aan u maleynaa inaan halkan ku soo koobi karin anagu dhalinyarada Soomaaliyeed haddaanu nahay magaca Soomaaliyeed state waan ka tagay waxaanu nahay maaragtay dad aayo u baahan dad dhibaato badan soo gaadhay dhaqankoodii aan haysan waxaan nahay dad diintoodii ku I'm sorry diinteena ka hadlo wabadi arkaysan badde wal madax qaawan waan ogaynaa inay qalad tahay laakiin waa saamayntii dagaalka ya waa saameyntii dagaalka dadka qaar inaysan afkooda aqoonin waa saameyntii dagaalka taariikhda wadankayga aan aqoonin waa saameynta dagaalka wadamo islaameed sida Kenya lagu gumaysto sidaan ku dhaqmi lahayn loo sheegaa waa saameynta dagaalka ilaahay wuxuu inoo sameeyay siyaasaddu way kala baxdaa waa maqaadir ilaahay waxaynu nahay nation state waxaynu barayna ma luqad baynu wadaagnaa taariikh baynu wadaagnaa dad iyo dhiig iyo walaaltinimo wadaagnaa af baynu wadaagnaa wax walbaynu wadaagnaa dhulna waynu wadaagnaa meel ku kala harimayno marka hadii shisheeyihii aynu shartay iska erinay wixii uu inoo sii jeexjeexayn wali maanta ku socono waa nasiibada laakiin de horumar hadii laga helayo haatan welcome hadii 20 sano aanu joognay bilaa maxaan ku dhadaa qaran 20 sano aanu joogay anigu 6 jirman Soomaaliya uga tagay nolosheeda Soomaaliya 3 goor maan ku noqday 20 ka sano ee maxaan ku dhadaa ay sheeg kale ee dagaalku socdaan waxaan ku noolaa Switzerland Italy waxa dhaqankayga sidii aan u baran lahaa uma baran luqadayda sidii aan u baran lahaa uma baran waayo odayaa isdiray fursadina waan waayay ana diinti ka hadlay Soomaali هذا لكن دقيقة دم شوية واحنا نقول واد ما تنتهي مركز دليرد waxay u kala baxdaa qaar badii maxaan ku dhadaa qaato Liibiya wadadeeda marayno aad ogtiin xaaladooda kuma naanba ku sii dhinta saxaraha kuma naanba markay yimaadaan iyagoo isla nolol baad Yurub ku heleysaan ayno dhalinyarada halkan joogta markii qurba joogta ay soo noqotay uga sheekayso faa'iido darrada qurba joogta inay moodaan inay xaasidna laakiin waa reality xaasidnimo ma runta inuu sheegin dhalinyaro badan oo hankacay oo mooday $100 dibadda laga soo diray cunaha la iska soo qabtay gaajo maxaan ku dhaday digsigii la soo kontrol la soo diray dad moodaysan inaan nolol ku haysano been bad naftiina u sheegteen boqolaal baa wadada idinkaga horeeyay ku dhintay saxarihii ku dhintay badihii Yurub markay tagana sharci waayay meel lagu qoqoobay wadankan deganahay waxa weeyaan wadan federaal dadka waxa lagu yaani wadamada kale sida Ingiriiska kale qofku meesha doono kaga noolaan laakiin Switzerland marka timaado kale waxa weeyaan gobolada loo soo bandhigaya case-kaaga horta ugu horeyn hebel baa yimi wadankaas uu ka dhashay midabkiisu waa caynkaas taariikhdaas uu sheegtay yaa qaadanaya 26 gobol baan ka koobanahay 26 ka gobol marka maalin baa case-kaaga loo geenaya 26 ka marka mid ka horanaya okay boom qaxootigan ugu yeesay boom kana لكن مركي مدكو قاتان gobolada way kala fiican yihiin suuqii jireemo ma wada aha qaar baa buurale ah qofka maxaan ku dhadaa loo qorayoonkii 10 farin inuu cuno qaar baa bukad mani aan la siin cuntada loo kariyaa maxaan ku dhadaa ay ku doontaan waa 2011 waxaan ka sheekeynay waana wax dhaba waxa dhaca
haddaad moodaan yurub inay sidii idin hayso wadankii 20 sano waxa maxaan ku dhadaa dhalinyarada wadanka joogtaan iyagu bilaa tacliin ay tahay odayaashii isdilay haddii moodin faa'iido keenaan dee al-shabaab bay keeneen waa kaa wada wahaabismka la mariyey diinta rasmiga ka hadli maaya xigtirkan ka hadlaya khalad ay fahmin wadanka gudihiisa waa inaad mada dhibsatay واحد اوكي كدو marka waxa weeyaan dhankii wadanka gudihiisina tacliin darra ka jirta waxaan ku dhadaa ay sheeg dhaqankii oo khalad loo fahmaa jira maxaan ku dhadaa dadkii qabiil bay ku indhafureen wadan ma aysan arkin kala dambeyn ma arkin national institution ma aysan arkin mar boqoladu u timaada ayaa maxaan ku dhadaa maskaxda ka xadaysa waana waxa haatan maanta la geeyay marka waxyeelada iyo dhalinyaradu way badan tahay haddii haatan qarannimo aan weynay dantuna ay noqoto qofba inuu gobol oodo dhalinyaradan horumarkeedii taas ku jirto anagu dhalinyaro haddaan nahay aad baan idin soo dhaweynaa laakiin bisharuud inaan idinka helnaa waxaan u baahannahay mid xigta waxaan u maleynayaa dhalinyarada aad baa looga hadli doonaa laakiin anigu waa soo gunaanadayaa waxaan idinla jeclaystay inaan ku soo gunaanado gabay soomaalinimada ay jeclaysiiyey anaan soomaali wax ka gelinay hooya waxay noo shiday riwaayad la yidhahda hadmay hadba guursan doontaan riwaayaddii baan daawada waxaan ku yidhi ayaa hooy ha ma atome soomaaliya waxay qabtaa biyaha naturaalka la cabo caagadaha ku jira markay halkaasa ka taagnaa laakiin kadib gabaygana ay bartay aad baan u jeclahay aad baan u qiimeeyaa soomaalinimadu igu soo jiiday dad badan baan la wadaagay idinkana caawa waxaan jeclay inaan idinla wadaago waxaa la yidhaahdaa baaq waxaana iskale hadraawi wuxuu yidhi adigaan cirka u bixin ama boodin leexada ama badaha waaweyn nafta aan ku biimayn baariis adaan tegin ama boon ka sheekayn barashada dalkaagaa horta la bogtaayo beriya la isku hawlaa dhulku baaxad soor iyo bannaan miidhan weeyaan ama waa busiyo oo ninka buuku haysto beentaada weeyaan soomaaliya waa hariid waa qaleel doesn't work waa been dhulku baaxad soor iyo bannaan miidhan weeyaan ama waa busiyo oo ninka buuku haysto beentaada weeyaan balcad jawhar shalaambood baraakada qoryoole waxa canab islaadee bay dhabi u gaar tahay boosaasiya beer bixin duule laaleys biyo guura kala bayl beeraha wajaale lagu reebay baahida baar dheer iyo jilib baardheeriyo jilib waa 100,000 mayl dhulka lagu baraaray beeyada lagu talaalee badar lagu abuuray lagu riday bariiska balka lagu talaalay muuskiya babaygii barkadeen xareedo waxaa taa ka sii badan dhulka bariisamaadka beeshanadu daaqday barta aynu dhaqanaa barqadhari ka joogtay iyadoo barwaaqo ah baliyadii xareedii ku bariisanaysa bidix midig dhan loo dayo berigiiyo galbeedka waa beri cadceedii soo saartay baalaha bilcilkiyo maraagii shimbirihii bulxameen indhihii basaaso buuraba ma aragteen moogtahay barbaaray heesaha baroontuma adigaan boga u lulin beeray kabeebey bismillaahi saylici hana haybtii bari batriyo wareegtaa ku baadi sooceen waa ciyaaraheeniya horta maa fahanteed moogtahay barbaaray qalabkan budumicliyo warankiyo bilaawaa ku baadi sooce moogtahay barbaaray barshin iyo darfooli bayluula xardhalaa ku baadi sooce moogtahay barbaaray waxaa loo biseelaa ama qurux ku caanbaxa ama laysku baantaa ama lagu bogsoodaa kal bugtaa ku faydaa kuugu deeqa baashaal guri bila ku magac dheer hablaheena bilid iyo biligtii ilwaad kale bilcaantii shisheeyaa rag way jecelyihin dumarka shisheeyaa way isqaqaawiyaan baa layidhi moogti tanka kale ka eegeen bilcaantii shisheeyaha ninka beegsanaya waxaan kaaga baaqayaa inaad baadi noqoteen cidla bayli ah iyaan bahalka kugu helin isu beri gayaanka barta gogoshu taallo bahda lagama maarmaanka budigaaga koobaay baaqaygu waa kaa soomaaliya ha noolaato dhalinyaradan horumarkeeda hala siiyo waa aayihii wadanka waa bulshada horumarkeedii furihii loo heli lahaa waqtigayga hana la siiyo waajibkayga hana la siiyo mudnaantayda hana la siiyo midnayntayda ha laga shaqeeyo idinku waad nagabteena fursaddaydina siiya waxuuti ma ahaan karnaa anagu